hubka ruushkan la heli karin baa hadalinku nin qoorho galsuru waaye iyo hubkii ruushka dhulka hoos soo dhacay oo waxa weeye uu macawistii iyo wixii soo dhaafay mid ka dambeeyay baa soo arkay oo salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh soo dhawaada khayrta qiimaha qaayaha meel wad ka sugantii dunida daclada warjinna in caafimaad qabtaan meesha nagala socotaan oo iska garanaysaan waa duqi nuurudiinha maanta sheeka noo hayay soo dhawaada barnaamijkeena maanta waxa weeye waa iska riwaayad iyo qosol nin ayaa wuxuu sameeyay reemiyi buu ahaa geel jiru iska ahaa oo waxa weeye geel jirahana de waa iska ogtahay hal macawis iyo waxba yaa Allah hal mar ku soo iibsadaa oo intaas 12 bilood ayuuna reerka arkayna ama 3 sano ama yu geela buuraha iyo dullaha meelaha iska wadwadaya moogta kadib maalmaha kamid uu degmo imaaday tuulo aan dhahay kadib tuuladii kolku imaaday ayuu wuxuu arkay masaajid kadibna masaajidka ayuu weligiina masaajid oo hormalaha muusan ku tukan masaajidka ayuu damcay inuu ku tukado kadib kolku masaajidka ku tukay siidii wuxuu arkay macnaha salaadii buu galay macawisuna malaha booyada u joogtay macawisuna malaha booyada u joogtay ya kadib waxa dhacday ninkii kolkii la rukuucay iyo hubka ruushkan la heli karin baa hadalinku nin qoorho galsuru waaye iyo hubkii ruushka dhulka hoos soo dhacay oo waxa weeye uu macawistii iyo wixii soo dhaafay ya hubkii ruushka ayaa soo dhacay maxaa dhacday macawistii kolkay la sii rukuucay marada ay ku gaabanta korba u sii kacaysa moogta iyo kor u sii kacay kadib mid ka dambeeyay baa soo arkay oo saayna ugu taagay moogta kadib wuxuu yiri ninka macawista maxaa la dhahaa weysadu iyo salaadu ka asixi waayeen qaba oo hoos u jid saad u soo laacay hadii malaha nin rukuucsan uu ahaaye onbo qalabkii uu gacanta ku dhigay hoos u jiiday qalabkii dhabaay rig hoos buu dhuftayba maxaa ka dhacay ninkiina maskaxdu sameeyay wuxuu yiri malaha masaajidkan weliga hormuun ku tukan moogta malaha waxan waa cibaad salaadaba kamito isaguna intuu booday baa imaamkii ka horeeyay baa maxaa la dhabsiyaa leeydi markaas soo maroojiyay nin xoog lahaay imaamkii baa kulaha imaamu isdajid taniya safka dambe saasunba dabada la soo haystaa sheeko kale waqtiga xabashada dhulka wareegaysa ee dhulka ogaadeenaya ama Soomaali galbeed ay maxaa la dhahaa gumaysigaysa u wareejinaysa yaa waxa xabashi taliya waxa lagu soo bedelay deegaanka lagu soo bedelay ayaa wuxuu sameeyay odayaashii iyo salaatayntii iyo dadka cuqalada ah soo shiriyay markaas wuxuu dhahay waa ina maxaa la dhahaa ururka aad naga garab siisaan waa ina nala soo afjartaan maxaa la dhahaa wax kasta oo nabadiida maxay aad sheekadii Itoobiya iska garanaysaan bay dhaheen marka wuxuu maqli jiray dadka Soomaalida ah dhaqaalaha iyaga ururkooda halgamayaasha iyaga u geeya markasta ilaa dadka Soomaalida iyo weligood iyo Allahdu ay soo halgami jireen oo waa dad dunida baal dahab kaga jiray adigaan ogeyn ma fahanti then waxa dhacday wuxuu maqlay marka raashinka iyo sonkorta inta meelaha gashadaan macawista ay gashadaan iyo ku sii qaadaan oo saas ku qariyaan kulaha inta ragga saa wada fiiriyay ragga oo saa wada fadhiyo wada kadalooda yaa qalabkii baa malaha de macawisti xoogay saa soo yir riix kulaha wararka inaad koobooyin sonkor kulliga mid kasta oo golanka ku siitay laakiin abtigeed ba ka tahay maanta inaan halka aan hal koobo sonkor halka lagala baxayna hal is wada baaro hal is baaro xagal maxaa la is baaro araash ku taal arabambano araash ku maxaa shaqada de shanshada Allah ka jibiyo iimaanka laga siibay marka hada sheekadana intaas ku egtay salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh leedinku dhufay maalmaha waa noo fiicantiina noo fiicnaada oo waxa weeye subscribe iyo share iyo like iyo comment-ga anaga iloobina